Tartanka xiisaha badnaa ee la wada sugayay ee maamul goboleedyada dalkeena Soomaaliya ayaa caawa isku adkiisa lagu qabtay magaalada Muqdisho. Xiriirka Kubadda Cagta Soomaaliya iyo Wasaaradda Dhalinyarada iyo Ciyaaraha ee maamulka gobolka Banaadir oo iskaashanaya ayaa caawa waxa ay markaasi sameeyeen isku aadka tartanka maamul goboleedyada iyo gobolka Banaadir oo sanadkan xiiso gooni leh, waxaana isku aadkiisa loo qabtay gobolada dalkeena Soomaaliya kuwaas oo markaasi loo qaybiyay 6 gobol, waxaana ku cusub maamulka dhawaan ee dowladda federaalka Soomaaliya u aqoonsatay Khartoum State ayaa sanadkan lagu soo daray tartankan ayna ka qayb gali doonaan iyagoona tartan aad u xiiso badan uu markaasi yahay. Waxaana tartankan isku aadkiisa caawa oo ka dhacay hoteelka weyn ee Jazeera Hotel ee ku yaala airport ayaa waxaa markaasi isku aadkiisa ka soo qayb galay dhammaan maamul goboleedyada dalka Soomaaliya, waxaana ka maqan oo kaliya maamulka Puntland oo markaasi ka qayb gali doonin sanadkan, waxaana booskooda buuxinaya maamulka Khartoum State ee dhawaan loo magacaabay. Ka maqnaanshaha maamulka Puntland tartankan xiisaha badan saameyn ceenkee ayuu ku yeelan doonaa maadaama kubadda cagta aysan ku jirin arrimaha siyaasadda. Markaan waxaan eegi doonaa qaabka ay tartanka isku dhacay iyo sida loo qabanqaabiyay. Waxaa markaasi isku dhacay Galmudug iyo sidoo kale Hirshabelle ayaa is arki doona. Gobolka Banaadir iyo Koonfur Galbeed ayaa is arki doona. Sida markaasi isku aadku u dhacay Jubbaland iyo Khartoum State ayaana iswajahaya tartankan, waxaana ka maqan maamulka Puntland oo markaasi diiday inay ka qayb galaan ciyaaraha ay soo qabanqaabisay Wasaaradda Dhalinyarada Xukuumadda Federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale tartanka xiriirka kubadda cagta taabagelinayo. Waxaana ku cusub sanadkan maamulka Khartoum oo dhawaan dowladda u aqoonsatay maamulada dalka ka jira. Sidoo kale maqnaanshaha dhanka maamulka Puntland ayaan eegi doonaa. Waxaa markaasi gebi ahaanba tartankan iskaga baxay maamulka Puntland kuwaas oo markaasi ku eedeeyay dowladda federaalka Soomaaliya in ay markaasi ugu baxday balamo badan oo fara badan oo markaasi quseeya arrimaha siyaasadda, walow ciyaarihii ay markaasi milan siyaasadeed ay soo galeen, sidaasina ay ugu maqan tahay qaybna ay ka tahay aqoonsiga la siiyay maamulka Khartoum State ayaana saameyn kale kaga yeelatay dhanka arrimaha Puntland oo markaas sidaasi tartankan iskaga baxday. Tartankan waxaa la ciyaarayay sanadihii ugu dambeeyay maamulka Puntland qayb ayay ka ahayd iyaga oo tartankan gacan weyn ka qaatay iyagoona ku guuleystay tartankan sanadii 2010. Sidoo kale tartamadan waxa ay ka imaaneysay kaalin mug leh, waxayna qaaday dhowr koob oo markaasi maamul goboleedka loo qabtay, waxaana la filayaa sanadkan isbedel weyn in ay sameeyaan maamulada kale hadda loo qabtay koobkan. Waxaana difaacanaya maamulka gobolka Banaadir oo sidaasi sanadkan marka la doonayaan in koobkooda difaacdaan iyo sida ay qaab ciyaareedku u ciyaari doonaan ay soo bandhigi doonaan. Waxaana inta badan markaa tartanka u yeelayay sumcad iyo sidoo kale ciyaar wanaag markaasi maamulka Puntland maadaama uu ka baxay oo diiday inuu ka soo qayb galo ciyaarahan xiisaha badan la wada sugayay. Waan arki doonaa tartankan iyo natiijooyinka iyo maalmaha la ciyaari doono, waan idiin soo gudbin doonaa haddii